dawladeed iyo qaab loo maro adiga oo garanaysaa sharci iyo si kastaba ha ahaato ha ku dhisnaado xiritaankiisa laakiin ma nin mooro ku xiran oo maartay inta laga qaado oo isla marka la leeyahay si soco waxa weliba waxay leedahay procedure loo maro nidaam la waafajiyo marka taa dawladda ay u taala gudoomiyaha baarlamaankana maro inaa hornaa su-aasha ugu dambayso maxaa ka jira muddadii aad baydhabo joogteen odayaashu idiin sheegeen in mukhtaar roobow loo diidan yahay in la soo daayo ilaa laga dhiso golaha wasiirada ee koonfur galbeed sidoo kalena waxyaabaha lagu soo dayn doono ay qayb ka tahay inuusan xil qaban karin waddankan uusan ka bixi karin gaar ahaan muqdisho waxaa nasiib dara horta inay soomaaliya dadkii oo dhan iska wada noqdeen dad ka hadla siyaasadda had iyo jeerna waxaanan ama kasoo bixin ama madaxtooye ama golayaasha maaragtay dawladda inay dad un ayaga iska hadla malahooda iyo maaragtay iyo dhanigooda taana umalayn maayo in hadda waxa dadka soomaaliyeed loo sheegi karo oo dhanni iyo mala awaal iyo maaragtay ciddii dhihi lahayd way jirtaa haddii lagu dhawaaqi lahaa ama go-aan madaxtooye kasoo baxa ama hadduu gola xukuumadda ee kasoo baxda ama hay-adda maaragtay sharciga ee macsidoo qaabilsan garsoorka laakiin wax aanan laga maqal xafiisyadii dawladda fadhi ku dirar keliya iyo baraha bulshada iyaga laysa dhex meeraysanayo oo malayn maayo taa aniga inaan hadda ka jawaabana diyaar uma yihi maxamed cumar dalxa oo ah mudane ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kalena ka mid a wafdigii gudoomiyaha golaha shacabka ku welinayay waawaantii iyo dadaaladii nabadeed oo ka waday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo caawa dib ugu soo laaftay muqdisho ayuu ahaa saaxiibayaalkeen in muqdisho ay nagala socotaan goordhow waxaa maqli doonta markana wararka kooban goordhow gurceel ayaa maqli doontaan magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeeyey waxaa ku soo badanaya qaraxyada iyo dilalka maanta qarax ayaa ka dhacay meel u dhow iskooyska taleex ee magaalada muqdisho gaari nooca soomaalida u taqaano qooqan oo proof ahaa ayaa halkaasi lagu qarxiyey waxaana la sheegay in qaraxa dhacay oo ahaa mid gaariga lagu xiray markii uu dhacayay cidna kumay dhex jirin waxaana ku baakinaa meel banki horteeda ah 4 qof ayaa ku dhaawacmay oo dad shacab ah oo ka agdhawaa goobta qaraxa ka dhacay waa qarxii shanaad oo 2 toddobaad ka dhacay magaalada muqdisho gudahood sidoo kale magaalada muqdisho gaar ahaan suuqa bakaaraha maanta waxaa ka dhacay dil loo geystay qof ganacsado ah oo caan ka ah gudaha suuqa gudihiisa dilkaasi kadib ciidamada howlgal ay sameeyeen waxay israsaasayeen kooxdii wax weerartay oo iyagana la sheegay in gudaha qaarkood lagu dilay qaar kalena ay ciidamada dawladdu ay dileen degmada hodan ee gobolka banaadirna xaafadda albaraka iyo KBB inta u dhaxayso maanta waxaa lagu dilay lawn xariste nin wada ka ahaa mid kamid ah gawaarida ay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya barqadii ayuu dilkan dhacay arrimahan oo dhan ayaa waxay walaac ku beerayaan dadka ku nool magaalada muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyay aad u hadalhayay falalka amni darro oo magaalada ku soo badanayo isugu jira dilal iyo qaraxyo degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee Soomaaliya maanta waxaa ka soo muuqday 4 wiil oo xirnaa kuwaas oo la sheegay in loo soo qabtay fal la xiriira kufsi ayna ku eedeysan yihiin lana yaabo in maalmaha soo socda baaritaanadu la soo gabagabeeyo sida ay sheegeen mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada 4 wiil ayaa la sheegay inay ku eedeysnaayeen dil gabar da'da qaangaarka ka yar oo ardayda iskuul dhigata kamid ah oo la sheegay in waa kufsi gabar da'da qaangaarka ka yar oo iskuulada ku yaala degmada Gurceel midkood dhigata loo geystay kadibna muuqaal laga duubay gudoomiyaha degmada Gurceel Cabdullaahi Maxamed Barre ayaa warbaahinta la hadlay سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد دمان maamulka galmudug qaybihiisa kala gedisan taliska booliska ee degmada Gurceel odayaasha dhaqanka beesha ugaaska uu yahay nabadoon caruuf xildhibaanada dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh salaam bacdi runtii galabtay waxaan meeshan isugu nimid kiis ka dhacay degmada Gurceel oo runtii aan aad uga xumaanay bulshadana aan rabno inaan dareenkeeda la wadaagno kiiskaas oo ah runtii kiis fool xun kuna dhacay gabar yar oo dhalinyaro ah ayna geysteen wiilal yar oo lagu soo eedeeyay dambigaas inay iyagu leeyihiin lagu soo eedeeyay arintiisa ayaan galabtay meeshan isugu nimid raggaas gacanta ayaa lagu soo dhigay waxaa gacanta ku soo dhigay ciidamada amniga waa eedeysanayaal waa 4 dhalinyaro ah
aabbihii dhalay gabadha goobo joog ayuu yahay wuxuu ku qancay qabashada ciidamada amnigu ay gacanta ku soo dhigeen insha Allah tacaala waana maxkamadda sugayaal maxkamadda ayaana ku wareejinaynaa haddii Allah awoodda leh ogolaado bulshada ama bahda waxbarata dhammaantood dareenkaas runtii foolxun oo ku dhacay gabadhaas yarta ah waan uga tacsiyeynaynaa waana ka xunnahay insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa inuusan kiis dambe oo noocaas oo kale ah uusan deegaanka ka dhicin haddii Allah awoodda leh ogolaado dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay waxyaalaha xunka la iska daayo bulshada reer Gurceel dhammaantood runtii arrintaasi waa arrin foolxun arrin hore u dhici jirta ma ahan waa arrin deegaankanaga runtii ku cusub waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala raggan dhalinyarada oo hadda lagu soo eedeeyana waxa la wixii shariicada islaamku ku xukunto in lagu fulin doono haddii Ilaahay yiraahdo kuwa kalena ay iyaguna ku waaqsan doonaan ay arrintaas runtii ka qowmeyd doonaan ayaan rajaynaynaa waxaan leenahay dhalinyarada wax baranaysa waxaad wax u baranaysiin waa bulshadiinii waxa maxay ahayto rabo inaad wax u qabatiin waa dadkiinii ka waanto waxyaalaha xun waxyaalaha wanaagsan u dhaqaaqa ayaan leenahay qof wax xun loogama daydo laakiin wax fiican waa looga daydaa falkaasi waa fal foon xun waxaan leenahay intii maqashayna ha ka leexato intii aragtayna ha ka leexato waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala maxkamadda degmada Gurceel wixii shariicada islaamka ay ku kala helaan eheladii gabadhaas ka dhalatay iyo eedaysanayaalkaas waxay ku kala helaan ayay kala yeelan doonaan haddii Allah awoodda leh ogolaado warka propagandada ah ama maxay ahayto social media la soo dhigayana hal joojiyo ayaan leenahay dadka arrintaani kulli waxa lagu kala bixi doonaa heer maxkamadeed ayaa lagu kala bixi doonaa in ba la ekaatee kiiskaas ka dhimanina ma jiraan raggii eedaysanayaalka way joogaan eheladii gabadhana way joogaan maamulkii qaybihiisii kala duwanaayna way joogaan waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala maxkamad loo dhan yahay qolo walba ay ku qanacsan tahay wax warahoo dambana aysan ka imaan doonin inay ka dhici doonto haddii Ilaahay yiraahdo mar dhow waliba maxkamadda waan u dadajin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo Cabdullaahi Maxamed Barre gudoomiyaha degmada Gurceel ayaa kaasiya dhageystayaal qayb gudoomiye barnaamijka soo gaarnay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta waxay amartay in xabsiga dhexe ee Xamar lagu sii hayo Antonio Thomas oo 48 sano jir ah waxa uu dhashay boqortooyada waddanka Britain ninkan ayaa maxkamadda gobolka Banaadir sida ay sheegtay wuxuu ku eedeysan yahay fal la xiriira in qatar dhinaca amniga ah oo gelinaya Soomaaliya gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho sida darteedna oo ciqaab mari doono baaritaanada ay ku socdaan ciidamada ammaanka ayaa sabtidii la soo dhaafay ee toddobaadkan waxay ka qabteen garoonka aadan Cabdulle Ismaan aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaana kadib ku wareejin xarunta dambi baarista ee booliiska Soomaaliya ee CID-da magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya wararka ka imaanayna waxay sheegayaan in laba wasiir shaqadii ama xilkii laga qaado wasiiro kale la magacaabay arrintan waxay ka dhalatay xiisas siyaasadeed oo maalmihii la soo dhaafay ka taagneed dhulka Soomaalida Itoobiya ee maamusho waxaana xilka ka qaaday madaxweyne Mustafa Cagjar xiriir xumida ama khilaafka siyaasadeed ayaa u dhaxeeya madaxweynaha Soomaalida Itoobiya Cagjar iyo sidoo kale wasiir ka tirsan dawladda federaalka Itoobiya sidoo kale ah hogaamiyaha xisbiga talada haya ee ismaamulka Soomaali galbeed ee dhulka Itoobiya ah waxaana warku sheegayaan wali ay socdaan kulamo si loo soo afjaro xiisada u dhaxeysa dhinacyadaas oo saameyn ku yeelatay kulamadana badankood waxay ka dhacayaan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaana goobjoog ka ah oo shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha waddankaasi Abiy Ahmed markan